السلام عليكم. haddii aad maqasho maalqabayn, caalim, aqoon-yahan, iskama noqon ee waxay noqdeen waxay ku noqdeen ka faa'iidaysiga waqtiga iyo adeegsiga maskaxda. maalmo kooban oo aad ka faa'iidaysatay xusuustooda waxay kugu dhashaa farxad, halka maalmo kale oo kooban oo waqtigaaga ka mid ah oo kaa dayacmay xusuustooda waxay kugu dhashaa murugo iyo qoomamo. sida xoolaha xeeraha loogu ilaaliyo, hantida silac iyo dhibaato loogu ilaaliyo, sumcadda iyo sharafta dhowrsan iyo dhaqan lagu ilaaliyo. waqtigiina ku ilaaliya dadaal, yaysan idinka noqon nolosha bilaa tacab iyo bilaa dadaal. dadkuna waxay u qaybsamaan laba qaybood: qof rajo iyo damac leh iyo qof ujeedo iyo qorshe leh. sidoo kalena inta badan waxay wax u hagaagaan midka qorshaha iyo ujeedada leh. haddii aanad lahayn ujeedo iyo hadaf aad buugaagta u sidato, subax kasta aad u kala hayso oo aad wax u baranayso, sidoo kalena ma yeelan kartid aragti aad ka miro dhaliso. wax kastoo batana way jabaan. marka laga yimaado akhlaaqda iyo camalka wanaagsan, sidoo kalena khayrka ugu weyn qof kasta laga rabo inuu lahaado waa inuu akhlaaq yeesho. qof aan aqoon lahayn oo aamusani wuxuu ka fiican yahay qof aqoon leh oo aan akhlaaq lahayn. sidoo kalena afka wanaagsan waxaa ka fiican dhaqanka wanaagsan. sidoo kalena waxaan rabaa inaan idiin sheego walaashayga ama walaalkaygiiyo dhammaan inaad waqtiga qiimihiisa garataan oo aad ka faa'iidaysataan intaad daa'ir tihiin. haddii aad noqotaan qof da' ah ama weyn, si aadan uga qoomamayn, sababtoo waa waxaad ka miro dhalisay riyooyinkaagiyo idil. waxaad ka faa'iidaysatay waqtigaaga. waxaan ku leeyahay aniga walaashayga ama walaalkaygiyo ku guulayso labada daarood, yacni adduun iyo aakhiraba. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.